بريها وحل سويدين وحيابو بدن وضدك كورسي وحل قاري أنا بالبين تحتاجن وبانت تحتاجن هوتيل هيران اللي يراد حسن وقاس وحو كسو دقي جوهر وحو كسو دقي حمر الدنيا وحنا لنا وبحن إن أنا جوهر أصعن أنت سواء عدينيا هرينا وحدو عدين إن أنا مرنا بجوهر تقدوني من التقايو وحكوهر وحيابها عشان كون هذا أنا يا على عبد الله أنا يا على عبد الله كم ولا حد هيران يا شباب لكن وحكون هذا ورقبيل من نغنكره سياسة عد كستقو صوماليا ها اوغاتو وضبكاس وركي قبيل انكوضا هذا الدين لو ربي سياسة هي هيرشبيل هي مقعيدي عصباي عنوغو هيرشبيل لكم مجيرو وحشغانكم مليهي قف كستقو بن آدم وحر وحو ربو وشيء كرا أما رنو وهاتو أما بينها وهاتو أسيء جدا ما مر لوادو هنكو عليديا إن هيران لباتو عن عادي إهين لقوضو عدة ودنه ولا يقال وانا اسلنا قال وحي كيمادو oo dhibaato ah mas'uuliyadeeda cid qaadan doonto waa la ogaan doonaa Soomaalida waxa la diiday nabad waxa la diiday ummadda in la sukeeyo sababta oo ah dad baa laga yaabaa inay maslaxad kaga jirto inuu dadku kala tago qofna dadkii way soo aruurina qofna dadkii uu kala daadina ama kala firrinayo ninba soo u yaqaan maanta 22 Oktoobar taariikhdu wax bay qori dadku ma dhamaan karo keliya anigoo beledweyne dhex taagan in la yiraahdo helikootarkaasoo ku jira xasan ugaas diyaaradaasoo raacay diyaaradaasoo la soo socdaa beenta intaas leeg dadka abuurayo oo ummadda marin habaabinayo ha ka fiirsadaan alle haddii ay tahay dadka wax qoro ama telefishinada ha ka fiirsadaan idaacadaha ama raadiyo ha ahaato ama telefishin ha ahaato qofku meeshuu joogo lagama been sheegi karo in laga been sheegana sharci ma aha waxaad ogaanaysid anigu jawhar inaanan u socon inaanan aadi doonin dhibaatada laga wada hiiraan waxaana la gaarsiiyey in la caburiyo oo xuquuqdayni lagu tunto ana la gaarsiiyey laba maalin isku si ma ah annagu waxaan u doodayno ama aan u qaylinayno ama aan weydaysanayno waa xuquuq wax dhibaata oo wadana ma jirto beesha caalamka UN Maraykanka Ingiriiska Faransiiska Jarmalka waxaan u sheegaynaa ama aan la socodsiinaynaa waxaan anagu doonayno waa xuquuq wax dhaafsiisan oo aan wadno ma jiraan waxaan la gaarsiiyey in naloo diido inaanu ku xulanno gobolkayna xuquuqdii aan lahayn iyo xildhibaanadii aan lahayn waa naloo diiday adduunyada ha ogaato waxaa ku xiga golaha sare waa la leeyahay ilaa hadda ma hayno nalooma sheegin tirada aan ku leenahay golaha sare waxaan horey ugu sheegnay UN-ka inaan annagu maadaama 8 gobol aan gobolka nahay inaanu helno qismi la siman ama tira la siman waxa ay qaataan gobolada
waxaan joognaa in la yiraahdo hiiraanna afar uu leeyahay jowharna afar uu leeyahay ninkii reer hiiraana oo ku qanacsan inuu jowhar la mid noqdo adoo 60kii markii xornimada la qaadanayay gobol ahay jowhar degmo ahaa waxa waaye marka ummadda ku nool hiiraan ma ku qanci kartaa afar xubnoodna jowhar afar xubnoodna hiiraan waa waxaan suurtagal ahayn waa waxaan cadaalad u dhoweyn marka ummadda reer hiiraaney xuquuqdeedna sidaad ku raadsanaysiin adinkaa og waxaa loo baahan yahay marka qodobka koowaad reer hiiraan waa in la ilaaliyo nabadgelyada waxaa laga shaqaynayaa in nabadgelyada laydinka halleeyo ooy magaaladu noqoto magaalo fowdo si loo yidhaahdo shir laguma qaban karo lama tegi karo ayaa laga shaqaynayaa qof kastoo ku nool gobolkan ha ogaado qodobkaas nabadgelyo haddaysan jirin nololuma jirto nabadgelyo haddaysan jirin wax jiri kara ma laha nabadgelyadu waa rukunka nolosha haddii la waayo nabadgelyo nolol waa dhammaad nin walboo ogaa asalaamu calaykum